kulanti wacan wanaagsan soo dhawaada asxaabta ku xiran channelka Waxoogaal maanta saaxiibayaal waxa idin wadaa film aad u xiiso badan intana muuqaalkan ugu dagalin saaxiibayaal waxa idin kaga mahadcelinayaa sida aad muuqaalada u la gareysaan sidoo kale aad u share gareysaan waa kana muuqaalkii ee daawasho wacan saaxiibayaal filmku halkan ayuu ka bilaabanayaa Autumn iyo wiilkiisa ayaa markaan gaari wada saaran balse Autumn wiilkiisa waa uu dhiirigeliyaa mar walbana sidoo kale Autumn waxa saaxiib la ah nin kale oo loo magacaabo Acid asagana wuxuu degan yahay Kentan mar walbana wuxuu la noolyahay xaaskiisa asagana xaaskiisa kama ag fogaado waliba xaaskiisa oo markaan uur leh ayuu markaan la jooga xaafada waxa soo wacay saaxiibkiis Autumn ayaa soo wacay markaan waxay ka wada hadlayaan arrimo khaas ah labadooda sidoo kale gabadhana waxay Kenta ay qayb ka degantahay waliba Kenta ayaa guri ayaa uga dhisan iyada khaas u ah sidoo kale markaan Autumn wuxuu joogaa gurigiisii wiilkiisina gees ayuu ka jiifaa Autumn markaan wiilkiisii wuxuu u akhrinayaa warqad uu dhibay markaan warqadii ay wiilkiisa gacanta ka saaraya sidoo kale teamkan ayaguna diyaaradleyda waa team gangster ah ayaguna markaan waxay wataan qorshe ayaga u gooniya markaan way wada caawinayaan waxay joogan hotel sidoo kale markaan Autumn iyo wiilkiisii waxay wataan gaarigoodii waxay u baxayaan dalxiis si mataqaan ay u soo wareegaan sidoo kale nimanka gangsterada ah waxay u galeen wadada si mataqaan ay gacanta ugu dhigaan wadada ayay habkooda soo dhigteen qalabadoodina way taagteen sidoo kale qoryo ay diyaarsadeen Autumn iyo wiilkiisina wadada ay ku soo jiraan si mataqaan ay dalxiiskooda ay u gutaan markaan gaari ay wadada taaganayaan iyagoo iska dhigay inay wax dhigtaan balse Autumn ayaa wadada soo galaya Autumn sidaas ayuu buundo ugu badaya markaan gaarigii shil ayaa soo galaya balse wiilkiisii wuxuu leeyahay meeshaan iskaga carar nafta baas wuxuu u dhibaya warqad wuxuuna ugu dardaarmay warqadan qof walba inuu soo dhiibo sidoo kale inuu qof walba aaminin qofka ku karsan warqad oo furta ka saaro sidoo kale Autumn wiilkiisa uu cararaya meesha uu iska baxsanaya nimanka gangsterada aan xabad ay ku furiyaan ilaa gaarigii uu ka farafanin goosto balse wiilkiisii wax walba uu daawanaya markaana nimanka tuugada way carareen gaarigii ay wateen meeshan waa iska baxsadeen wiilkii yarka ahaana wuu soo cararay sidoo kale markaan nimankii gangsterada ah waxay kala dilayaan gabar wadada uga hortimid markaana gabadhii waa ugu dhameynayaan gaarigeedina way ka qaadanayaan sidoo kale markaan waad ka soo baxeen labadoodii balse ninkii wiilkii yarka ahaa wuxuu wadada kula kulmayaa gabar kale oo Kenta deganad iyaduna gabadhii ay markaan qabanaysa balse wiilkii waa uu ka diidayaa sababtoo ah ereygii abiis ay ku taagan ugu dambeyntii wiilkii gabadhii way afag garteen gabadhiina way soo waday markaan nimanka gangsterada waxay u tageen ninkii mataqaan ay ka amar qaadanayaan balse markaan wuxuu leeyahay ninkii aad dishin wiil yar ayuu ka tagay wiilkiina ayuu xogtii u dhiibay nimankana wuxuu leeyahay wiilka soo dila si mataqaan ay u badbaadaan nimankiina way soo baxeen waxay soo qaadanayaan baal yar oo mataqaan qiica waxay sameynayaan oo holac ah waxay sameynayaan inay mataqaan ay guwaan meesha Kenta sida mataqaan wiilka ay u helaan Kenta dhama ay dab ku dhajinayaan markaana gaarigoodii ayay ka wateen waxa wadada soo galaya Ice markaan wuxuu arkayaa dab wadada ka kacaya markaana Kentii oo dhan ayaa gubatay sidoo kale wiilkii waxay geysay gabadhii gurigeedii ayay geeday markaana waa cunto ay siinaysaa gabadhii waxay sameynaysaa wiilkii inay xogteeda weydiido oo meesha uu ku yimid wuxuu u dhibayaa warqadii uu abiis u dhiibay markaan gabadhiina markaan wiilkii waa uu aaminay sidoo kale markaan waxay sameynaysaa nimankii tuugada ahaa waxay soo weerarayaan Ice xaafadiisii oo gabadhiisii ay joogtay guriga ay soo galayaan markaan balse irida ay ka furaysaa gabadhiina markaan way u caga jugleynayaan mataqaana xog fada baran ay ka raadsanayaan gabadhii ugu dambeyntii gabadhii waxay sameynayaan in gabadhii u bootayaan oo xog ay ka raadsadaan balse gabadhii dab ay ku calinayaan gabadhii markaana gabadhii waxay sameynaysaa inay wax sameyso qows markaana gabadhii holac ay soo qaadanaysaa si mataqaana ay iska difaacdo holac ay ku firinaysaa nimankii markaana gabadhii way ka baxsanaysaa sidaasna nimankii waa iska soo tageen nimankii maadaama gabadhii ay qaban waayeen waxay soo aadayaan dhankaasi mataqaana sida gacanta ugu dhigi lahayn Ice markaan wuxuu joogaa guriga ay markaan ay Ice ku qabanayaan si mataqaana wiilkii ay xogtiisa uga ogaadaan markaana wiilkii wuxuu la joogaa gabadhiina markaan wax walba wiilkii waa u sheegaya sababta wiilkii gabadhii markaan waa u aaminay sidoo kale nimankii gangsterada waxay sameynayaan inay Ice oo soo wadaan waxay geenayaan meeshii mataqaana ee hore ay ku dileen wiilka abiis sidoo kale markii wiilka ay geeyaan waxay ku arkayaan meeshii wiilkii raadkiisii markaan wax u cadeynaysaa in meesha uu wiil joogay markaana Ice waxay weydiinayaan meeshii wiilkii uu jiro Ice markaan uu isdaafacayaa sidoo kale markaan Ice waxay ka qaadanayaan xogtii meeshii wiilkii uu joogay waxay leeyihiin nageen meeshii wiilkii uu joogo markaan Ice waa isdagaalayaan labadoodii balse ugu dambeyntii Ice qori ay ku qabanayaan markaan wiilkii iyo gabadhii waxay wareegayaan Kenta iyagoo dabka ka cararaya sababtoo dabku waa uu gubayaa markaan labadoodii waxay gabadhii ku amraysaa in wiilka dabka xagiisa ay u cararaan dabkiina markaan uu soo fidayaa markaan ugu dambeyntii waxay sameynayaan in wiilka dabka xagiisa u dirto balse Ice xaaskiisa markaan waxay sameynaysaa inay far soo qaato oo ay soo goobto ninkeedii wiilkii iyo gabadhii waxay galayaan gurigii qolka dheer ay ku galayaan markaan wiilkii halkan ayuu ku nasanayaa sidoo kale markaan wiilka waxay ku amraysaa inuu qalka bixin balse meeshii waxa soo gaaraya nimanka gangsterada ahaa oo Ice uu hogaaminayo sidoo kale Ice waxay ku amrayaan in guriga uu galo balse meeshii waxa imaanaysaa
Ice mataqaana xaaskiisa ay amaanaysa oo meesha dagaal ay ka bilaaban rabtaa. Markii wiilku guriga uu soo galay wuxuu ku amrayaa inuu mataqaana asaga la afduubtay oo ayaga xogtooda uu rabo. Sidoo kale markan waxay ogaanayaan inuu mataqaana ayaga uu la hadlayo meeshan xabad ay ka bilaabayaan. Wiilkiina ay gabadha kale waxay ka boodayaan darbiga, nimanka tuugada ahna meesha way soo galayaan. Markan waxay ogaanayaan in mataqaana baxsadeen, balse meesha waxa si loo filaa uga amaanaysa Ice xaaskiisii waxayna dilaysaa markan ninkii tuuga ahana wuxuu sameeyaa inuu iska dhicimaago, balse ugu dambeyntii ninkii tuuga xabad ay lugta uga dhafanaysaa. ninkii tuuga ahana markan sidaas ay uga dhameynaysaa oo Ice xaaskiisii ayaa dilaysa. ninkii tuuga ahana markan lugta ayuu furay. Markay disho markan waxa la sameeyaa ninkii kale wiilkii wuxuu ka marsaa gabadhii inuu keenta u dhex galo. Ice markan xaaskiisa ayaa amaanaysa halkaana markan asaga dhaawac ay ka dabiibeysaa sababtoo ah dhaawac ayaa asaga soo gaaray. sidoo kale markan waxa sameynaysaa ninkii kale oo la socday ninkii gangastarka ahaa wuxuu sameeyaa inuu wiilkii gabadhii uu goobo ayagana dabka ay ku carareen. sidoo kale markii dabka uu ku dhex arko wuxuu sameeyaa inuu ceersado markaana gabadhii iyo ninkii is qabanaya, balse ugu dambeyntii wuxuu sameeyaa inuu gabadhii ka awood bato markaana uu ciid ku jiido. wuxuu leeyahay waan dilayaa, balse wiilkii ayaa hortiisa ka imaanaya. wuxuu leeyahay inta dileed aniga kaale ii dil, balse gabadhii ayaa gadaal uga imaanaysa. intay markuu sila dil ayaa gabadhii gadaal uga imaanaysa. markaana wiilkii bir ayay ku dhufanaysaa saana ninkii gangastarka kale ay uga dhameynayaan. markan gangastarkii waa uu dhintay oo labadoodii halkaas ay ku baxeen. sidoo kale dabka waxa ku dhex jira oo qolkiisa dheera saaraa Rice iyo xaaskiisii waxay xiranayaan dabka gaashanka celiya oo hoqiica ka celiya aysan gashanayaan. sidoo kale markan dabkii wuxuu kusoo kacayaa gabadhii wiilkii waxay sameeyaan inay badda dhex galaan, sidoo kale ay badda uga dhex dhootan holaca. baddii ay hoos muuqufiyaan si mataqaana ay dabka uga badbaadaan. ugu dambeyntii dabka way ka badbaadeen, waxay biyo ka tuurayaan meel kale oo webi ah. sidoo kale markan dabkii waa istaagay oo keenta dhan waa gubatay. Rice waxa uu maanaya mataqaana gurmad. sidoo kale diyaaradahan ayaa badbaadinaya labadoodii. markan gurmadka ayaa u maanaya dhamaantoodna sidaan ayaa lagu badbaashay. asxaabay filimka halkan ay ka gay asxaabay aniga muuqaalkan like saara una share gaar asxaabtina kale. insha Allah filimka ayaa inoo balna asxaabay aniga filimka jeclaan lahayd inuu gula soo wadaag qaybta hoose ee commentiga.